kulanti wacan wanaagsan daawadeed lahaantiba meel kasta oo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkii Murtisoor toddobaad kasta ka daawataan True Cable TV toddobaadkan maanta barnaamijku waxa igu martiya oo igula sugan oo igala qayb qaadan doono isla markaana markii labaad ka soo muuqan doona Cali Bashiir Yuusuf. Cali waxa uu ka mid yahay hal abuurada maansooyinkiisa xigmadda iyo ay ku dheehan tahay isla markaana aan doonayna daawadayaasha ama intaan ugu xidhan inaan mar kale la wadaagno. Cali kusoo dhawo marka hore barnaamijka markii labaad aad ka soo muuqato barnaamijka. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Sagal aad baad walaal u mahadsan tahay. Marka labaad sida wanaagsan ee qiimaha iyo qaayaha leh barnaamijka mar labaad igu soo casuuntay. Bahda True Cable iyagana waan u mahadnaqayaa dhamaantood si iyagoo isku duuban insha Allah. waanad ku mahadsantihiin sida aad ii sharafteen. Anaguna aad baan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga qaaliga maansooyinka waxa jirta maanso la yiraahdo xurmo waalid bal maansadaas iyo qaabkaas u sameysay. Sagalay walaalood mahadsan tahay. Tixdan horta waxa la yiraahdaa xurmo hooyo. Marka waxa ka sheekeynaysaa horta qiimaha waalidku leeyahay labadaba markaynu eegno maaha mid aynu kusoo koobi karno barnaamij iyo tix kaliyaad. haddana marka aynu sii eegno hooyada maaha mid aynu maanta barnaamijkeenan ama tixdan anigu aan curiyay mid aan kusoo koobi karo macnaha qiimaha iyo kartida iyo wanaagga aynu leedahay, laakiin waa wax ka mid ah wixii yaraa ay maskaxdaydu ay soo toojin karaysay ee hooyo ay kaga hadlaysay ayuun baan tixdan kaga hadlayaa. marka waa xurmo kale waan garanaynaa waa wax la xurmeeyo la ilaaliyo. marka tixda waxaa la yiraahdaa xurmo hooyo. waxaana ka sheekeynaysaa hooyadu qiimaha ay nala soo martay laga soo bilaabo intii aynu caloosha ku jirnay fooshii xaaladii umulitaanka xaaladii koritaanka haddana hawshu ilaa imika dad waaweyn noqono qofku weynaad waxa la yidhaha hooyo lagama maarmo qofku da'du doonaba ha gaadho. marka tixdu halkaasay kasoo bilaabaysaa. tixdan waxay curatay 2018 dhexdiisii bay curatay. marka qiimaha hooyada un baan kaga hadlayay. marka waxay ku bilaabmaysay xurmooy hooyoy macaan xubada tii igu dhashay midii i xadhaarisay xanaano isiisayay xerada uurkeeda hoose anoo xasilooni haysta anoo xididada jidhkeeda xinjiraha sinaheeda yaala intaan xubsaday nafteeda 9 bil xaamishay. marka halkaas waxay ka sheekeynaysaa 9 bilood iyo uurkii ay hooyo igu siday. waxay leedahay xanafka fooshiya dhibkeeda xanuunka wareerku keenay xumada dhabankeeda fooshay maxay xaadi ka guurtay intay xafiday i haysay xanjeerka intay isaartay intay bila iga xijaabtay xoraysay nafteeda shiilan xaasha ii diiday hooy xaraabana igu samaysay xareeda hooy xareyd intay xiis iigu yeedhay xabadka igu seexinaysay maxaan xawleyn dhamaysa caanaha neeskeeda xoorka intaan caanaha naaskeeda xoorka intaan xaaxsaday macaanka afkaygu dabad xambeeyey. markaan xaabsaday kasheeda xalxalay laabteeda diiran anoo xoodaaminaya xodxoday naaskii ibtiisa intuu gudol iyo xawleeyey anoo dharag xaynka haysta maxaan ku xadiray jiifka xiskayga anoon garaadsan xoolkayga markii aan jiifay anoon xumad sheeganaynin haddana xuxuleeya khuuro intay xisigayga dhuuxdo maxay iga xeertay dhiilo. oo ilmaha yari hooyadu way dareen taqaanaa oo ilmaha yar maanta hadday wax kasi noqdaan way dareemaysaa isaguna haddana u sheegin lahayn hooyo halkan ay xanuunaysaa haddana iyadu way dareemaysaa waa dareen hooyanimo. xiskayga anoon garaadsan markaan xoolkayga jiifay xaalkaygu hadduu xumaado anoon xumad sheeganaynin haddana xuxuleeya khuro intay xisigayga dhuuxdo maxay iga xeertay dhiilo. xurmoy hooyoy macaan turuqa xoogayga maanta isxoodkii socodka jiilan waxaa qurux igu xariiqan adaa igu xeeray hooy. xurmoy hooyoy macaan xuskaaga haddii la dhowro xarafka diintiya qur-aanka xadiiska rasuulka suuban xaqaaga sidii uu sheegay xaqiiqdiisa lahsawey. xaq mudan asxaabigu weydiiyey wuxuu ugu jawaabay 3 jeer hooyada sooma markii afraad buu noqday aabuhu. marka halkaasna waxay noo sheegaysaa macnaha karaamada ay hooyanimadu leedahay hooyanimo. marka de waxaan leeyahay hablaha Soomaaliyeed ee waqtiyadan xaadirka ah waxyaabo kale waan qaltaagay dee ha eegaan bal halkay diinta ay ka taagan yihiin
markuu nebigu ragga ay leeyihiin inta badan waxaad arkaysaa dumarku inay leeyihiin raggii xaqaygii way duudsiyeen laakiin xaqooga ilaahay baaba sheegay xaq uu ilaahay sheegayna ku bini aadam sheegayo dib waxaad ku fashaaba waa iska liitaa waay xurmoy hooyey macaan xuskaaga haddii la dhowro xarafka diinta iyo qur-aanka xadiiska rasuulka suuban xaqaaga sidii uu sheegay xaqiiqdiisa laase weeye xuboy hooyey macaan siduu kuu xeeray mowle xilkaaga naftii ilduufta u xoorta sidii xashiishka xadhigga kuu goysa maamo inay ku xarooni naarta xuladka ololada huraaya xaabana looga dhigay saciira xadkaaga rabbaa ka yeelay xurmoy hooyoy macaan guddoonka xaqaa i saaran haddaan sanawaad xambaarka dhabarka xadhig kuugu sooho xajkana kugu soo wareejo xisaabta adaa ku dheera xaggayga igu lahaaday si kastoo aas tiraada xaqa hooyo u gud macnaha heer haddaan gaaro intaan halkaa ka lugeen hooyo xambaaro xajka soo dawaafiyo xisaabta adaa ku dheera xaggayga igu lahaaday markaa qof kun dee lamalabku dheer ma gaari kartid marka xaq intuu la egyahay bay sheegaysaa xisaabta adaa ku dheeri xaggayga igu lahaaday xuboy hooyoy macaan intaad xay tahay adduunka ku noolow nolol xariira xasdigu ka fog yahay agteeda xaqdigu kaa deeran maamo xumuhu ka huleel agtaada waxaa xanan daadsan kownku adiga ka xaraam agtaada xurmoy hooyoy macaan markay xawdaadu gaadho xilliga naftu kaa baxayso xarbiga sakaraadka mowdka inaanad xanuun dareemin ku xiiqin su-aasha maalig xarafka tawxiidna sheegto xawaaro ku dhaafta meesha marka meeshaas waad jidkiisa raad xawaaro ku dhaafta meesha ayaan xaakim kuu beriya ku biir safka xoralcaynta xuboy hooyoy macaan intuu xulanayo mowle ka cabi xawdkaa rasuulka jannana xerya looga oodo xigaalu ahaan ilaahay xurmana ku lahaan agtiisa intaad laba xaal ahaato kuwaar xeradii fardows marka haddee hooyooyinka dhammaantood waxaan u baryaynay inuu ilaahay jannada uu si fudud u geeyo marka xurmo hooyo de intaa yaro koobab baan kusoo koobi dhahaa waa tahay maansada labaad magaceeda iyaduna waxaa la dhahaa aabo xaggana markii aada hooyadii inteedaan kaga imano xaggana intii aabahanu sheegayna bal maansadan xilli maad samaysay sagalay maansadan iyadoo horta hooyadii ka dambeysay 2 sano ka dambeysay marka 2020 sanadkii markaan soo dhaaf ayaan iyadana curiyay marka iyada laftigeedu aabuhu xaq weyn isagu xajid aabuhu isaga laftigiisu de xaq weyn buu nagu leeyahay macnaheedu sagalay maaha haddii dee nabiga calayhi salaatu wasalaam uu 3 jeer xaq hooyadiisa ka afraad oo aaba ka dhigay inaynu dhinaano aabihii maadaama nabigu sallallahu alayhi wasallam isaga laftigiisu xaq weyn buu nagu leeyahay xaggii barbaarinta hadday noqoto iyo xaggii korinta hadday noqoto hawsha ugu badan marka laga tago hooyadu inta guriga ay ka dhex qabanaysa ilmaha ilaalintiisa hawsha ay la soo martay isaguna wixii dabadda iyo colisidii dibad oo dhan waa odaygii xaafadda waa oodihii xaafadda oodaha xaafaddu macnaha muhiimadda iyo waxa uu qabto cidda garanaysaana waxa weeyaan cidda maanta uu agteeda ka maqan yahay da-du dooniba qofkaasi ha lahaado marka qofka agoonnimo kusoo koray ayuunbaa maanta garan kara mana awoodda macnaha kaalinta aabanimo ay ugu jirtay ee isaga ka maqan marka gaar ahaan anigana markaan eego aabahay xaq weyn buu igu leeyahayo macnaha noloshayda maanta macnaha halkan aan taaganahay wuxuu ka mid ahaa dad aad buu isoo gacan qabtay alla hadaayo ilaamkana waa nool yahay insha allah inuu in badan sii noolaadana insha allah waan u rajeynaya marka mar aan anigu ka mid ahaa barbaartii shaqo qaran ee darweyne lagu xareeyey baajkii 2020 ayuu hawlo badan oo culus oo aniga i haystay ayuu iga dejiyey oo iga furtay dabeetana markaasay tixdan ay coratay igu dhalatay marka waxay ku bilaabmaysaa abtirsiimadaydiyo abka aan ka imid ee ku aroorta haybtay aab adiga weeye arrinkaaga weyna axadkii abaal gala weligii ma iishee abaalku waa cajiib axadkii abaal galaa weligii ma iishee anigana dadaalkaad aabba igu ahaysaan asaagay ku dhaafoo waad ii adeegtay arrinkaaga weyna ayaantaan ahaadeen adduunyada bilowdiyo goortaan agtaa imi isamkaad isiisaan arladana ku yeesho ku aflaxay agtaada arrinkaaga weyna aabba korukacaygii socod bardakeynkii markaa mar haddaan kasoo bilownay dee dhalashadaydii isam bixintaydii wixii maxaa ku xigaya barbaarintii kicitaankii ilmuhiina dee macnaha socod baradkii marka aabba korukacaygii socod baradakeyntii goortaan isdaba maro
hubba tidhi agtaydo aamu hiil i garab suran iyo guushu waa adi guubaabo aan hadhin ila garab istaagto aayar soco itaalka ha isqoobin weligaa igu sii adkaysa arrinkaaga weynaa manaa markaad kuftaba aabbo marka in maxaa yar gacantiisa daadini wuxuu leeyahay hubbo kac soco aabbo hore usii soco macnaa wuu ku adkaynayaa oo adadkaanta aabbaha laga bartaa inta badan jileeca iyo macnaha wanaaggii naxariistina hooyadaa laga bartaa aayar soco itaalka ha isqoobin weligaa igu sii adkaysa arrinkaaga weynaa afka barashadiisiyo hadal aalan gala garan amintaan ku taagsaday erey kale horeyntii hadba magacodhaahdii hooye igu amraysee carabkaygu a iyo uu ku koobee akhrintooda daal iyo ii ahayd wax howl badan adikaaga xafidkii aabba aayar sheego arrin igu adkaadiyo erey aanan ka rahayn igumuu ahaano waan kugu abuurmee arrinkaagu weynaa macnaha hooyadu ereyga ugu horrey macnaha wanaaggii hooye noo haysa bal eeg ereyga ugu horreysa ay bartay ilmaheedu hooye maaha oo aabbo markay hooye leedahay aabbo dheh waxay ka jeceshahay in dee ilmaheedu uu noqdo sida aabihii oo kale taasaa ku khasbaysa marka inay aabbo ay tiraahdo baro ilmaha yarna ereyga ugu horreeya u bartaaba marka ilaahay waa aabe waa aabba marka wuxuu leeyahay afka barasha adikaaga xafidkii aabba aayar sheega arrin igu adkaadiyo ereyga aanan ka rahayn iguma ahaano waan kugu abuurmee arrinkaagu weynaa aabba ababintaydii bilowgii aqooneed alif iyo xariiq waa misna feegar igu tiri dabadeed ismoodkii inaan leynka sixi karo kuwaas qoobay marar badan misna aabba taagaa caawimaad isiisoo ay bartaya qoraalkii ma abbaaray meeshii araggaygu sii durug wax meelaha agaasimay ku ileeyay dabadeed aan erdheer hoggeediyo halkay kuwa aroorto aabbo taaba qaaday arrinkaaga weyna dee ciddii malcamad qur-aantii lagu dhigan jiray looxa soo martaa garanaysa aana dheer iyo kuwa marka waa alifaatasada malaa imaka caruurta keji iyo meel baa la geeyay qofki ilaa qoraalka adkeeyo oo carabiga horbarto oo qoraalkiisa barto qur-aanka intiisa barto lama geyn jirin maxaa yeelay dugsiga marka halkaa waxaan kasoo qaatay anigu aabbo wuxuu qofkii igu horreeyay macalinkayga ii noqday dee macnaha xariiqitaankii qoritaanka aan ka barto ayuu ahaa alifataasa isoo dhigay marka araggaygu sii durog wax meelaha agaasimay ku ileeyay dabadeed aana dheer hoggeediyo halkay kuba aroorto aabba taaba qaadee arrinkaaga weynaa kowlaba askumintii ingilishka baradii afka aan ku hadalnayo alkunkii af soomaal aaba igu jahaysay arrinkaaga weynaa inaad tiirka noloshiiyo tahay nuurka aadmigu ka helaan iftiinkee shida gebi ahaantood waxaa garan agoonkiyo maxastaadan oodine araggaaga waayey aqalkooda oodine arrinkaaga weynaa aabba weyne dabadii adaa aayahaygii halka aan u jeediyo waxa aan ku howlahay giddi ii habeeyo ixsaan igu deeqa arrinkaaga weynaa afxumada adaa neceb wanaaggana adaa dhisaa adigaa macbuud iyo daahow amiin iyo rusushii i barayoon aabba kaaga dayda arrinkaaga weynaa hagar laaba waa adi haga toosan waa adi hami dooja waa adi ihujuuma diidaha dadku igaga baydhaan ee aan harsanayaa aabba adiga weeye amranaantu iyo ablaha arrinkaaga weyna hadduu aabbaha nool iyo cidi kusoo dhawaan mayso laakiin haddii agoonnimo iyo lagaa dareemo inaanu aabbaha nooleyn dhacdhaca dadku iska fara badanaya marka wuxuu leeyahy hujuuma diidaha dadku igaga baydhaan ee aan harsanaya aabba adiga weeye amranaantu iyo ablaha arrinkaaga weyna midka baylaha iga jira idayrinin ayaan qura ee aan har soo gelin ilamaa aan hoos helo aabba adiga weeye arrinkaaga weynaa aabba weynadeediyo ilamaa caruurnimo gelin qura imaad erin imanaad gariifine agtaadan ku noolaa adigaan ku eegtaa arrinkaaga dhowrtaa akhlaaqdaad isiisaan dadkuugu adeegaa unkay hoga tuskaagii anfac yeeshi dabadeed abaal baanan ku hayn weligii aan kaa gurin tariig io iftiimo jahli aafadiisiiyo mugdi iga daboolow ifku maalmo weeyo abid laguma waaree haddaan aabba dabadaa baaqi si ahaado maalmo aan ku daba maro duco aan dhammaan baan abid kuu hibeynoon aabba kugu deeqiyey rusushii udgooneyd ku aroor agtoodo naarta aafadeediyo ibliis iyo darkiisii eebba kaa najeeyo aabbo idam ilaahay ku raaxaysa aakhiro aamiin marka hagay ama aabbo hami dooje way iska magacyo badan tahay tixdani iyaduna intaasay kusoo idlaanaysaa waa tahay caliyo guntiga gabagabadii barnaamijkeen ku shaqeyna haddaynu soo qorno maansada ugu dambeysa waxaa la dhahaa tacab maansadani tacab horta markaad ereyga ka garab aada eegto tacab ama tabac anaa soomaalida kale waa tabac soo maa waa inuu qofkii wax tabcado marka waxay ka sheekeynaysaa in qofku isaga horta is ahaado
وقف واحد تبعنا سو قف واحد تبعنا isagu ahaado qof wax tabcanaya midda kale cidda uu ku dayanaya ay ahaato dad wanaagsan ifyaa akhriba qofku inuu isagu shaqaysto oo wixii dee u keenaya isaga kala daadsanaan iyo habayacsanaan xagga noloshaana uu ka tago ayay tixdan sheegaysaa tusaalayaal fara badan baa ku dhex jira oo aboorkii ay tusaale macnaha qofka bini aadamka ay ku tusayso taagtu leeyihiin iyo haddana si wax u samaysto waxaa kaloo jira cayayaano kaloo tixda gudaheega aan tusaale u siinayo qofka bini aadamka markaa tabac iyadu waxay curatay 2021 sanadkan aynu ku guda jirno marka anigoo naftayda gubaabinayay dee bini aadamkii kalena waxaa adigu aada leedahay way kula leeyihiin oo qofka waxaa la dhahaa abuurkii waxa maskaxdiisa kasoo baxda inta badan wuxuu wax u qabtaa waa dadka kale isagoo ha ku nafiso laakiin inta badan waxaa laga yaabaa waxa isagu ka hadlay inaan inta badan raacine dad badan ay ka faa'iidaan oo iyaga ugu noqdo motivation marka tixdan markan luqadda qalaad ku hadlan motivation bay noqonaysaa af Soomaalina dhiirigelin bay ku noqonaysaa marka waxay odhanaysaa ku bilaabaysaa murti soo taxnayd oo bari hore la taabtaa tiriilka waayaha cimriga oo taraaraa ku tus oo kitaabsi geelay taagtay aniguna tusaalaha taabtay oo idhi midka teena sidii nool taltalaabsigiisa iyo tamashlaha maraatada marka uu tusumaystay ka tabcaysta liitaa garanaynin tawfiiq show taayir weeyaan masaabiirta siino qaski ka tawdir qof xun oo de nolosha ka dhacay hadaad ku dayato waa taayir qaska baxay gaariga taayirku naqas uga baxo ma socdo adiguna socon maysid marka waxay tamartuna ilays iyo waa toosh la qaato tacab lagu abaarey ruuxa aanu talagelin weligii ma taawilo mana taabo qeyrkii sida ay u tooqeen toodaanu hadarayn sida ay u tiirsheen hebel isku galaas baan hayno bika gaaraysaa iyo beri baan waxba dhigan jirin hadduu macnaha isagu nolosha garaad laad ka dhacday waxa ku leedahay ka ha noqonina de noqo kan la hiigsanaya noqo way mana taabo qeyrkii sida ay u tooqeen toodaanu hadarayn sida ay u tiirsheen tisca weeye noloshuna toban aan la gaarsiin aadmigana tari kara sida ay u taalo kuwa taabo guushbayday ku tirayiin Soomaalidu waxay tiraahdaa noloshu waa 19 ma noqoto oo waayahay kan tobneeyay maasha Allah noloshiisa ka dhigay isagu ma toban buu ay u noqotay miinan tan 9 ka aan ku wada nooleyn aan 10 ka gaarin wad ku wada nooshiin laakiin isticmaalka awoodiisa maskaxeed iyo tiisa jireeda ku jirta in bay idin kala duuday ee wax kale oo ku kala duwantihiin ma jirto marka tisca weeye noloshuna toban aan la gaarsiin aadmigana tari kara sida ay u taalo kuwa taabo guushbayday ku tirayiin tamartuna ilays iyaday ku tirayiin tabcuna hal iyo laba qofba waa tunkiisa iyo turqiisa gaarka inta uu tikraaro tan hadduu hawl galo tan yar buu ku jiidaa dabadii tarasha iyadoo la damintay inda sarcadi waxa taag garmaayay waxaan tiifiyada ku arkaa nin la leeyahay timihiisa madaxiisu ku jiiday ama garkiisu intuu gaari ku xido ku jiidaya de wuxuu doonay baa ku keenay maskax buu ku keenay isaga sama hatta hadduu adiga ku indha sarcadi maskax buu keenay inuu adiga ka dhaadhiciyeen waxaan jiiday marka waxay leedahay dadkaas dunida ku wada nool way marka waxay leedahay xooguna tagoogtiyo way ku tusaysaa marka inaan ninkan xoog ku jiidaynin uu maskax ku jiiday xooguna tagoogtiyo tunka oo ku bararo ku tufmahay waa tuulka hoose maskaxta la gudihiyo aqliga la toojo lagu daro tafaariiq macnaha maskaxdiisi baa adeegsaday tafaariiqda kugu darayna waa tuu meelaha ka soo dhigtay haduu doono marka waxay leedahay waa noocaas lagu daray tafaariiq haddii aan tusaalaha kuu soo turjumo oon takarka ugu soo dhigo iyadoon taf weyn iyo lahayn turiqyo waaweyn xoolaho ka taagroon intay toos u fuusho tunka kaga istaagtay dhiigga ka tabsiisaa takarka waa iyayaro xoolaha ku dhagaan itaalka uu leeyahay haddana dhiig buu ka keenay aduu doono xanuun baa uu soo gudbiyaa badii marka awooddaadu waa inaad adag kor u qaadaan leeyahay intay toos u fuusho tunka kaga istaagtay dhiigga ka tabsiisaa tamar yara aboorkuna taaladu ku nool yahay tufka qanjidhadiisu ka toojacan dhufuu kaligii ku taagan makuulibaal intay baldiye sibla qaateen la dhisay intuu leeyahay waad aragtay haddana candhuuftiisu weliba ku dhisay lagu leeyahay baasha dunta weyn inta lagu sameeyay laga yaabaa in guriga ka dheertahay baad dadka qaarkood tamar yara aboorkuna taaladu ku nool yahay tufka qanjidhadiisu ka toojacan dhufuu kaligii ku taagan ka shakaata shiiday kaligii istababaray cayayaanta fiirmo tartan kula galayno caqligaaga taamka tifka gaadhin waayeen marka waxaa samaysanaya hawsha iyo adduunka galay waa cayayaan aan adiga maskaxdaada iyo caqliga Ilaahay ku siiyo midna ku gaadhin aan ku gaadhin adiga tifka gaadhin weeyaan adiguna tareegiyo nuur lagu talaalo ifka lagu talaatay tabataabe garashada maskaxdana taswiirsi toos aad u qeexdo halka taab isleedahay sida turubka baandhe
taxtax yoolalkaagana taashtaan ideylkood labi cunad shabeeyaan tara kugu xidhan dadka waxaa laga yaabaa inuu maantaas tiraahdo waxaa qabo haddana aad labac beritolaad qaban hawshaasina qofka inta badan noloshay ka ridaa marka waxay ku leedahay labac iska ilaali labi cunad shabeeyo tarar kugu xidhan tagtadana ha naawilin timaadada u diga rago arish kale taagna tala maanta hawgan wixii shalay ku soo dhaafina shalay baan waxaa qaban waayay iyo shalay baan waxaa qabtay ha ku daalina tan maanta ku hor taala dhaqaaji ta shalay iskaga tag haddii kale ta maanta tii shalay ku dhaafinaysa tagtadana ha naawilin timaadada u diga rago arish kale taagna tala maanta hawgelin hadalkana ha tuuriyeen marka aad tisayso tobigii ujeedadu yuu dhaafin taagtay hadalkaaguna yuu torrag un ahaanin cid inaad wax ka sheegto inaad mid dhaleecayso adoon taadiba qabsan kareen aad ka sheekaysan hebel aada liiddo uun hadda adigiiba meeshii fadhiyo halkii shalay fadhiya inaad liiddona markaa iska daa kabood hadalkana ha tuuriyeen marka aad tisayso tobigii ujeedkuna yuu dhaafin taagtii qofku tuuray kelidii dhabaryaana kugu tixin utod oo adigu hana tus inaad qof jira tahay haddii qof waxa adigu aad qabanayso oo kugu dhaliilo dhaliisha qofkaasi uu kusoo jeedinaya intaad maqasho ha ka dhicine adigu intaad halkii ka dhaqaaqdo tus inaad qof jirta berito laha yidhaahdo wallaahi hebel maalintii wixii aad ku caayaysay wakaa maanta guulka gaadhi ha ku yidhaahdo marka qofku tuure kelidii dabar yaanu kugu tixin utod oo adigu hano tus inaad qof jira tahay adigu inaad qof jira tahay tuste qofkan hana noqonin taariikh ruux kastaa tirsado oo markuu doono tiri karo halkaa maxaan ka wadaa haddaad cid kasta raacdo heblaayeyna mar suuqan tegaya raaco dabagalo maanta waxaan hawshaasaan la iska daba socon hadday noqoto waa kadeed marka taariikh qofku uu tirsado mar dhowna uu ilaabo markuu hawshiisa kugu dhamaysta dee waa uu ku tiraya sooma hana noqonin taariikh ruux kastaa tirsado oo markuu doono tiri karo sida timir xabaal iyo meel ducaa taalo qof kastaba tabaankii tuuntuusi hagarley tiimba kale awoodii hadba kii ku toydayo helin xogtaadiyo iyo helin tubtaadiyo xoga aad tallaasho dabadeedna kaa tibin timirta xabaasha taala lama kala laha kii soo gaadhaba uu darsadaa wuu cunaa sida taasoo kalena ha noqonin oo xogtaada iyana cid kasta ogaani hana noqonin ruux tira abaal ruux u tarayan celintii ku talagelin ku darsataana haddii abaal maalin lagu galo ilaasho qofka way taxtaashna waa ceeb nolol aan tis qaadine inta aan taagtaada iyo muruqaagu talax kamin tiska oo dadeero la talaabsa qayrkaa darishada tacliintana tagtag oo habaal marin togog weeye buuxo toosta kaa xijaabe iyagana ku taagnow dhaqankuna tugtiisii tayadu lahaan jiray adigoo ka togin tuugaa la daba soco islaam baa tahay sooma dhaqan baad leedahay dhaqankaagna hayso way diintana ku tababaro tawxiidka baaqbaaq tuko oo salaadaha taarikaadiyay dhici talaatiinka soobkana midhiyaani kaa tegi raaci oo taraawiix leedkii u taagnow sakadana ha tuulani tuuganima ayay dhicin siiyo ha tabtan toddobadaha lagu daray macnaha halkaa waxaa kasoo gelaya diintii sooma markaa sakada toddobadan markaa aan leeyahay toddobadaha lagu daray waa 8 nooc ee sakada la siinay markuu ilaahay wax ku siiyo sakada la bax oo taanaha ilaawin aakhiro mar haddaan adduunka kusoo tusay aakhira waa inaan dee qofkii xusuusiyo aakhiran wada aadiya marka waxaa la 30 soonkana midhiyaani kaa tegin raaci oo taraawiix leelkii u taagno sakadana ha tuuganima ayay dhicin tirmid bay horseediisii ha taabtaan toddobadaha lagu daray xaramkana u tacabira marka ay tanaado soo tuur dunuubtii tifta ka ahayd shaydaanka kugu talay marka dee lacagaysataan xashanad xajku macnaha khasab maaha qofku inuu xajka tago inta awoodun baa tagaysa marka xaramkana u tacabira marka ay tanaado soo tuur dunuubtii tifta ka ahayd shaydaanka kugu talay anigoo ku talax tagin tixda siiba dheereen tacab waxay ku leedahay noqon ruux tooyadoo khayr laga tallaasho ayraantu qabriga tago tabiya wargeysidu iska dhinte ha noqonina qof macnaha markuu dhinto dadku ay tabaan oo qofkii tabaa uu duceeyo xaqa laftiga khayr baa kaaga soconaya aadiya noqon ay tabac leedahay markaa tixdii tacabna ilaahay nagu anfacay intaasi ku sameeyay aadiya waa tahay daawadayaal intaas waxaa noogu soo dhamaaday barnaamijkii Murtisoor toddobaadkan True Cable TV barnaamijka xigeentan ku kulmi doono waxaan digaga tagnaa salaam allah